inta badan xanuunada ku dhaca dadka waa mid ay kasoo bogsan karaan isla mar ahaantaana ay u heli karaan daawo ku habboon xanuunkooda, balse waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa 5 dhaqan oo dhaawici kara habsami u socodka shaqada kelyahaaga kuguna sababi kara inay kelyahaagu kaa fadhiistaan. Si aynu isula jaanqaadno soo boqoshada kanaalkan haddii tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe, saar fiidiyogana like saar, ana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan si aynu u helno saaxiibo qiimo badan sida adiga oo kale. Mahadsanid. Kelyuhu waa mid ka mid ah xubnaha jidhka ugu muhiimsan. Shaqada ay qabato tan ugu muhiimsan ayaa waxay tahay inay ka mas'uul tahay samaynta iyo soo saarista kaadida. Waxaa intaa usii dheer hawlo kale oo ay kala qayb qaadato jidhka intiisa kale. Qodobada aynu ka hadli doono haddii aynu soo qaadano qodobka koowaad: kaadida oo la isku hayo ama si wanaagsan looga soo faaruqin waayo kaadida kaadi haysta. Tani micnaheedu waxay tahay haddii aanad si wacan u dhamaysan kaadida, waxaa laga yaabaa inay kaadidu dib u soo noqnoqoto. Taasina waxay cadaadis ku sababi kartaa kelyaha, isla mar ahaantaana waxaa kugu dhici karaa kelyo xanuun. Qodobka labaad: cabista biyaha oo kugu yar. Waynu wada naqaanaa inta badan kelyuhu inay u baahan yihiin biyo badan si ay u kala saaraan una kala miiraan ashyaada ay ka kooban tahay kaadidu. Sidaasi darteed waxaa lagama maarmaan ah inaynu cabno biyo badan oo aynu cabi weynaana waxay khatar weyn ku tahay caafimaad qabka kelyaha. Qodobka saddexaad: daawooyinka badan. Walow daawooyinka loo cuno in lagaga bogsado xanuun, balse tan micnaheedu waxay tahay qaadashada daawooyinka oo ku bata jidhka in ay waxyeello u geysan karaan habsami u socodka shaqada kelyaha. Qodobka saddexaad: cabiska sigaarka. Inkastoo cabiska sigaarku yahay qaadasho tubaako aynu naqaano inay caafimaadka la dagaalanto, ha yeeshee waxay sheegeen culimada daraasadda dhanka caafimaadku inuu sigaarku raad muuqda ku leeyahay caafimaad la'aanta kelyaha. Qodobka shanaad: daryeel la'aanta kelyaha. Inkastoo dadku ay xasuustaan daryeelka caafimaadka marka ay bukoodaan, ha yeeshee taasi waa mid laga wacan yahay. Waxaana loo baahan yahay in laga warhayo dhammaanba caafimaadka, gaar ahaan xubnaha aadka u muhiimsan sida wadnaha, beerka, sambabada, kelyaha iyo kuwa la midka ah. Intaas waxaynu ku soo koobi doonaa mowduuca aynu ugu magac darnay qodobada saameeya caafimaad la'aanta kelyaha. Waxaan kaaga mahad celinayaa la jaanqaadkaaga quruxda badan. Fadlan soo boqoshada kanaalkan haddii tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe, saar fiidiyogana like saar, ana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanid.